baroordiiq qaran oo soconaysa muddo 3 maalmood ah taasoo ay dawladda dalka Armenia ku xusayso dadkii kaga dhintay dagaalkii dhawaan dhexmaray iyadoo dalka Azerbaijan waxaana la xusayaa ciidamadii iyo dadkii kale ee Armenia kaga dhintay dagaalkaasi kuwaasoo tiradooda lagu qiyaasay inay kor u dhaafayso 5,000 oo qof dawladaha Armenia iyo Azerbaijan ayuu dagaalku ku dhexmaray gobolka Nagorno-Karabakh kaasoo ay gacanta ku hayeen muddo ka badan 25 sano Armeniyiintu waxaana halkaasi laga qabsaday ciidamada Armenia dagaalkaas oo socday muddo 20 cisho kadib waxa Azerbaijan u suurta gashay inay jabiso ciidamadii Armeniyiinta taasoo markii dambe ku qasabtay ra'iisul wasaaraha dalka Armenia inuu aqbalo heshiis ay dibadda ka riixaysay dawladda Ruushku laguna dhexdhexaadiyay labada dal heshiiskaas oo dhigayay in dhammaan deegaanada hoos yimaado gobolkaasi lagu wareejiyo dawladda Azerbaijan inkastoo shacabka dalka Armenia aad uga xanaaqeen inuu saxeexay ra'iisul wasaaruhu go'aankaasi waxa uu noqday heshiiskaasi mid qasaba oo saasi ku dhaqan galay Armenia waxa lagu qasbay inay halkaasi ka baxdo wali culays ayaa haysta ra'iisul wasaaraha dalka Armenia waxaana mucaaradku ay dalbanayaan inuu iska casilo xilka hogaamineed ee dalkaasi gobolka Nagorno-Karabakh ayaa gacanta u galay dalka Azerbaijan waxaana Armeniyiintii halkaasi deganaa ay u qaxeen dhinaca dalka Armenia ciidamo ka socda dawladaha Ruushka iyo Turkiga ayaana gaaf wareegaya aaga u dhaxeeya labada dal kuyo halkaasi u jooga xanaan nabad ilaalineed xuskan loo sameeyay dadkii ku dhintay dagaalkaasi ayaa waxa horkacay ra'iisul wasaaraha iyo mas'uuliyiin sare oo ka tirsan dawladda Armenia sidoo uu qorshuhu yahayna muddo 3 maalmood ayaana xusaska loo sameeyay dadkii nafahooda ku waayay dagaalkaasi ay ka socon doonaan magaalooyinka ugu waaweyn dalkaasi Armenia hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 tayo waa Telesom